الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. guddiga isku dhafka ah ee labada aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka mudanayaasha baarlamaanka xuduurka ka soo qayb galay bulshada Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda joogto oo ogahay oo hubo inay dhageysan doonaan lana socon doonaan daawan doonaan gabiga waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inta ka bacdi inta aan hadalkayga u gudbin waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatadii saakayto dhacday ka dhacday magaalada Muqdisho dadka Soomaaliya qarax ku qabsaday runtii waa xanuun badan tahay qoysas Soomaaliyeed oo saakayto bad qabay ayaa caaw waxa u hoyday geeri baa u hoyatay iyo cawl xumo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ummadda Soomaaliyeed ka saaro dhibaatada faraha badan intaas ka bacdi waxaan rabaa wax badan aan bulshada Soomaalida la hadlay laakiin haddana inay wax igu ogaadaan bay xaq u leeyihiin. Daahir Maxamuud Geele waa muwaadin Soomaaliyeed siyaasi Soomaaliyeed muddo dheer baan ka soo shaqaynayay siyaasadda iyo barashadeeda iyo maxaan ku raahdaa dhaqangelinteeda waxaan rabaa inaan la wadaago muddada dhirka badan ka soo bilaabanaysa sanadii 1978 xagga akhriska xagga barashada jaamacadda Tigidana ka soo bilaabanaysa 1986 xagga ku takhasuskana ka soo bilaabanaysa 1991 xagga masarkana ka soo bilaabanaysa 1995 xagga PhD-dana 97 ka soo bilaabanaysa xagga dhaxjoogga siyaasadana ka soo bilaabanaysa 22 sano ka hor xagga ka qaybgalka iyo taagnaantana ka soo bilaabanaysa 16 sano ka hor oo waxba kale oo aan siyaasadayn aan qabanayn muddada dhirka badan ayaan waxaan rabaa bulshada Soomaalida inaan uga faa'iideeyo khibradeydii iyo waayo aragaygii iyo aqoontaydii akademiga ahayd barnaamijkayga waxaan isleeyahay dadka Soomaalida kuma cusbo oo muddo 3 sano oo tagtay mabaadi'da iyo qiyamkii iyo waxyaabihii aan sharaxa ka bixinayay ayuunba ay ku soo kooban yihiin waxa aynu ka kooban yahay qodobada soo socdo Soomaaliya marar badan waxaa laga dhawaajiyaa way culowdo way isdishay laakiin dib u heshiisiin u baahan tahay waxaan leeyahay dib u heshiisiintaasi ma ahan kaliya in shalayta laga heshiiyo laakiin waxa laga heshiinayo waa birito dadka Soomaaliyeed sidee bay xukunka u wadaagayaan sidee bay isu xukumayaan sidee bay isula noolaanayaan waxyaabihii tagasay bay kaga gudbayaan dhaxal noocee ah ayaa generationada dambe loo reebayaa dib u heshiisiin dastuurka dhex gasho ayaa ugu horeeya waayo dadku dhibaatooyinka ay qabaan oo idil waxay ka heshiin karaan waxay xallin karaan ay wax ka qaban karaan markay dhexdooda ay ka midaysan yihiin oo ay aaminsan yihiin oo ay heshiiyeen oo ay ku heshiiyeen wax u qoran oo kan jooga ku dhaqo kan soo socdana uusan ka leexan karin muddo dheer loogu talagalo qodobka xigo aan ka shaqayn doono waxa uu yahay Soomaaliya markaad guud ahaan fiiriso ajanda siyaasadeed waxaa lagu saleeyaa baahida markaas bulshada adiga aad siyaasiga u tahay ama madaxweynaha aad u noqonaysay ayaa lagu saleeyaa arta ayaa dawladaha cusub lagu soo bilaabay teendha ayaa lagu hoos qabtay 22 sano ka bacdi teendhadii baan taaganahay shirweynihii arte ciidamo aan Soomaali ahayn ayaa ilaalinayay oo marti aan u nahayn dawladda Djibouti ah maantay teendhadan ayaan ku qabanaynaa oo ammaankeeda ay gacanta ku hayaan ciidamo Soomaaliya taakulaynayo oo nabadeeda ilaalinayo amnigaasi amni xumada ayaana keentay dalka meelo badan oo loo qabtay yeelan lahayd laakiin in dhibicda bariga Soomaaliya ugu fog teendha laga dhiso oo ciidamo aan ciidan Soomaaliyeed ilaalinayaan waxay muujinaysaa guul darro soo jireen ah oo haysato siyaasadda iyo habka hogaaminta Soomaaliya amniga baan rabnaa inaan wax ka qabanno oo dadka Soomaalidu ay is-aaminaan oo ognahay cidda amniga qasayso sida loo qasayo sida wax loo qaban karo u soo joognay nasiib aan u helnay bidaayada noloshayna inaan ka qayb qaadanno ciidamadii Soomaaliya ee xeryaha ku jiray waxaan naqaanaa si ay u shaqaynayeen si aan u shaqaynaynay caqiidadii dagaal ay qabeen baan naqaanaa wax baan ka qaban karnaa dadka waxaan kaga gedisanahay fursad marxaladayna ka mid ah noloshayna markay bilaabanaysay waxbarashada aan secondary-ga aan dhammaynay inaan 2 sannadood xiriir
xeryaha Soomaaliya aan joognay oo aan ka soo shaqeynay ciidamada la soo shaqeynay baahida baan naqaanaa ciidanku ay leeyihiin shaqada ay leeyihiin tawjiiha qaldan baan naqaanaa midka quman baan naqaanaa cadowga la isaayo baan naqaanaa taariikhdiisa baan naqaanaa sida la iska celin karo baan naqaanaa fikradday ku shaqeeyaan baan naqaanaa falsafada ay isticmaalaan baan naqaanaa say u tababartaan baan naqaanaa ciidanka aan u baahanahay noociisaan qiyaasi karnaa iyadoo baahideena lagu salaynayo qodobka kaas markii looga baxo qodobka xiga oo aan ka shaqayn doono waxa ay tahay Soomaaliya sida aad ogsoon tihiin laga soo bilaabo sanadii 1991 ilaa iyo hadda waa dal kala maqan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya dhib badan ayaa ka taagan arrinkaasi waxaan ahay qof aad iyo aad ula og 1994 laga soo bilaabo waxaan ahaa nin la kulmo madaxdii Soomaaliland oo si fiican u wada hadlaan oo og waxa la isku qabtay waxa la isku khilaafay iyo waxa lagu xallin karo sanawaadka iyo intii ka dambeysay arrimaha iyadoo dad badan oo Soomaaliya hadda laga yaabo inay yiraahdaan siyaasadii baan wax ka xalinaynaa ama arrimaha baan u daloolnaa ama aan xallin doonaa xilli aan iyagu siyaasadna ku fikirsanayn midnimana aysan ku fikirsan ayaan ka shaqaynaynay kala shiraynay wax la meel dhigaynay taas iyaduna waa qodobkayga saddexaad qodobka afaraad waxa uu yahay waxaa jirta siyaasadaha basooyaalka Soomaaliya arrin matoosta ah oo siyaasadda arrimaha dibadda ah oo had iyo jeeraale ay naga qaldanto dawladaha aan la heshiinayno waxa aan kula heshiinayno iyo sida aan ula heshiinayno arrimaha waxaan ahay nin aqoon akademiya u leh soo joog leh ka soo shaqeeyay diblomaasiyadii ka soo shaqeeyay damaanad qaadi karo inay Soomaaliya hesho xiriir diblomaasiyadeed xiriir arrimo dibadeed oo wanaagsan oo isu miisaaman ma ahan kaliya maanta ishaayto inay naga qaldaneed laakiin siyaasadda arrimaha dibadda weligeedba waxay ahayd nooma toosa ayay ahayd nooma toosada baan rabaa inaan toosiyo sanawaadkii tagay hadda 5 sano ugu dambeysay 3 diblomaasi ayaa dalka Soomaaliya laga ceyriyay dalkii wuxuu u muuqdaa marka dal waxaan ku iraahdaa dal wuxuu u muuqdaa haday siyaasadda gudaha isku qabtaan diblomaasiyadda weerar ku qaado oo diblomaasiyiinta ceyriyo runtii waa dhaqan aan adduunyadu nala qabin xanuun badan xal u baahan siyaasad baa nooga taalo inaan adduunyada siday u nooshahay aan ula noolaano arrinka xiga waxa uu yahay waxaan rabnaa dhaqaalaha in wax laga qabto dhaqaalaha marka wax laga qabanayo asagana waa in lagu saleeyo Soomaaliya inaad eegtid Soomaaliya marna waa daad marna waa abaaro mar waa dal daymaysan mar waa dal aan wax soo saarkiisa ay baaba'san yihiin mar waa dal aan badeecada uu soo saar aysan tartami karin mar waa dal maxaan ku iraahdaa aan la maal gashan karin mar waa dal aan ka heshiis ahayn khayraadka uu leeyahay sida uu uga faa'iideysanayo marka arrimahaas iyagana waxaan rabnaa dib u heshiisiinta markay dhammaato in la isla meel dhigo waxa Soomaalidu ay wada leedahay amba ha ku jiraan dhulka guntiisa amba guudkiisa ha saaraadaano amba biyaha ha ku jiraan amba badda gunteeda ha ku jiraan in la isla meel dhigo oo laga faa'iideysto arrimaha iyo arrimo kale oo cadaaladaha iyo la xiriiro ayaan rabnaa inaan wax ka qabano xildhibaanada Soomaaliya mudanayaasha Soomaaliya waxaan weydiisanaynaa inay codkaasina siiyaan si aan arrimaha iyaga xafiiska ugu sareeyo aan safar guuleedkaygii aan u gaarsiiyo safar guuleedkaygii tacliinta waxa uu dhaxlaa safar guuleedkaygii adeega bulshada oo warbaahin loo gargaar loo tacliin leh safar guuleedkaygaasina waxa uu dhaxlay safar guuleed kale oo siyaasadda ah oo ku salaysan baarlamaan laga shaqeeyo sharciga uga caansan ee baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyay oo dhaxalowrka la yiraahdo inta sharciyeedka aniga baa geeyay meesha oo ka meel mariyay safar guuleedkaasi wuxuu ii hogaamiyay in wasaaradii warfaafinta inay shaqeyso markii ugu horreysay aan meel mariyo oo si dhammaystiran ay u meel marto ayna keento libin warbaahineed oo dawladdu ay tiraahdo waa guusha kaliya ee laga gaaray warfaafinta xilliga aniga aan joogay safar guuleedkaygii diblomaasiyadda waxa uu keenay safaaraddii aan ka shaqaynayay aan joogay inay noqoto safaaradda faa'iidada ugu badan Soomaaliya ay ka soo gasho iyo xiriirka ugu wanaagsan oo waxqabad leh ay ka hesho dalka Sacuudi Arabiya dalka Urdun iyo dalka Bahrain baan ka ahay safarada isdabayaalka ah oo safar guuleedka ah ayaan rabaa meesha ugu sareysay inaan geeyo oo guushaas ay soo gasho marka waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliya waxa haray carabtu waxay yiraahdaan jaranjarada kor baa laga soo dhaqaa
meesha ugu hooseysa lagama dhaqo way sii dhiiqoobaysaa wasaaraddu waa la hagaajin karaa safaaraddu waa la hagaajin karaa laakiin kor markay ka hadlaysan tahay oo dowladdu ay tahay dowlad fashilan soomaaliya qofkii baaraa yaqaana dowlad guul daraysatay ayay adduunka ugu qoran tahay fashalka kor in laga soo saxo maahan hoos ka sixidda muddo dheer baa la waday lagama sixi karo waan idiin soo hormariyey waxaan idhi 22 sano ka hor teendha baan isku dooranaynay 22 sano ka bacdina teendha baan isku dooranaynay amni darro dalkeena ka jirta ayaan dibadda iskugu tagnay waddada ayraboorka laga soo gelayeen saaki qarax baa ka dhaca dad kalaa ku dhintay dowladdaasaa u fashilan oo xagga dhaqaalaha ka fashilan oo xagga shuruucda ka fashilan oo xagga amniga ka fashilan ayaa waxaa la soo gaaray xilligii ay noqon lahayd ay ka bixi lahayd dowladda fashilan soomaaliya intaasoo sannadood ka bacdi uma adkaysan karto waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka hadda jira kuwa ka culus loo sii guday xildhibaanada marka waxaan ka rabaa inay sii fiiga dadka akhriyaan taariikhda ay fiiriyaan xafiisyada ay ka shaqeeyaan dadka ay soo fiiriyaan haddii dad soo shaqeeya yihiin qiimeeyaan ay go'aan ku qaataan dowladnimada soomaaliya ballanqaad codeed ma ahan wax qof loogu gurmado loogu gargaaro ma ahan waa wax qaran lagu badbaadinayo dhibka socdo haddii aanu xallisin baarlamaanka sideedana ka tirsan 20 xildhibaan baa ka dhimatay kuwa kale nambar kalaa ka dhintay maanta ma heli karaan siyaasiyiinta ama baarlamaaniyiin ha noqdaan ama wasiirro ha noqdaane 2 kiiloomitir ay ku lugayn karaan bulshada soomaalida sidaas way u kadeedan tahay qarka waxay u saaran yihiin inay siyaasadda ka quustaan oo meelo aan la garanayn ay aadaan oo falcelin kale ay ka dhalato waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray xilligii la soo afmeeri lahaa guuldarrada isdabayaalka waa mid dhaqaale leh waa mid caafimaad leh waa mid amni leh waa mid isla socosho leh runta wax lagu qiimayn lahaa laga fikir lahaa xilli carruurta soo socoto dhallinyarada laga fikir lahaa waayeelka laga fikir lahaa dalka soomaaliya sidii dadka soomaalidu ay u noqon lahayd meelay ku noolaan karaan oo 24 saac qaxa sii socdo wax looga qaban lahaa xilliga ayaa la soo gaaray bulshada soomaalida waxaan rabaa inaan idhaahdo qofka siyaasadda wax ka qabanaya xildhibaan kaliya ma ahan senatoor kaliya ma aha waxa uu noqon karayaa qof kastoo soomaaliya noola neefsanaya ayaa wuxuu ku boorin karayaa in xildhibaanadu si ay u codeeyaan oo hoggaanka ay dooraan ay kala taliyaan oo ay wax meel mariyaan soomaaliya guul baan u rajaynayaa guul ay shaqaysato baan u rajaynayaa xildhibaanadu furo bay u noqon karaan guul furana waxay u noqon karaan guuldaro taariikhda soomaalida samaynteedu mar boqol ay la siman tahay marba qof ay la siman tahay marba generation ay la siman tahay generationka baarlamaanka nasiibka u helay iyo golaha shacabka inay soo galaan maanta waxaa la siman taariikh soomaaliyeed inay sameeyaan oo ay ka fikiraan berrito iyo sac dambe ay ka fikiraan waxaan rabaa aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rabaa marka xildhibaanada soomaaliya inay maanta soomaaliya wax u jeexaan wax ilaahay ay ku raaligeliyaan ay sameeyaan wax ay ummadda ugu daneeyaan ay sameeyaan ogaaba hoggaanka qaldan markaad dooratid qofka ugu horreeyo dhibka soo gaaray adigaa noqonaysa waayo 22 sano ka bacdi waan halkaan ku shiraynaa 4 sano ka bacdi inaana meeshaan ku shirin hoggaan wanaagsan ayaa heli karo cid kale oo keeni karta ma laha xildhibaanada soomaaliya waxaan weydiisanayaa cod baan weydiisanayaa baarlamaanka labadiisa aqal bulshada soomaalida taageero baan weydiisanayaa markii hawsha aan la wareegno waxaan damaanad qaadayaan ballan qaadayaan meel marina liiska dowladaha fashilmay ee soomaaliya ay ku raagtay inay ka baxdo aad baa u mahadsantihin